وصافنا إن أنا سلمت كدبنا إسبريف قريني هي موجكي هي وقت كبسة إن الجراي هي كاب كلها كل واحد سكوا فقي هي إن ما إنت أنا نوعرت محن السعودي من محل شباب اللي محل دفاعنا ما مدحونا دفاعنا من الوزارة دفاعنا ما شخصنا دفاعنا من الدستور دفاعنا وكل شيء كذا ماشي قصب بحيول حوالنا إلا يلاقوا إنه الدستور كان دفاعنا أو واحد النهاي وإحنا يلاقوا هي الدستور الديمقراطية marka aad leedahay hiil dastuur hadda waxa haysta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ma waxa tiin xildhibaano labadaas dhinac garab la safan mase xildhibaano dhaxdhaxaad ah kulankiina maxaa lagu taageeriyay anagu waxaan u aragnaa xilliga kan inaysan ahayn xilli ku munaasib ah haddii la ku rooyaa in eedan qabshadoodu wadankuna kala guuriyay December lagu jiro haddii la muujiga hadda la keenana aysan ahayn haddii la ku rooyaa xilliga munaasibka ah loola sugo misaayid laba diyaarin wasaarada xilliga madaxa baarlamaanka 20 bisha weeye wadanka waxa ka jira disaster baa ka jira oo duufaana ka dhacay gobolada qaar ka Soomaaliya bisha Puntland fakriya jira sida Joe area waxa jira haddii ay ku rooyaa ciidamada dhaqaale qaadan hawsha tan waxay qaadaysaa sidii waag hore dhacday kale 3 boqol miisaan laan wadankii barnaamijkii niyadka oo la taagan yahay intii miisaan loo sameeyo sidina loo safaso intaas oo dhan aqal ku keenaysa habsamo socodka maamulka iyo amniga iyo nabadgelyada ciidamada mushaarooyinka qaanta fududooda ay fursad u helaan inay mushaarkooda helaan intaas hadii waa inay keenaysa in dhammaan meelo badan oo hadda nabada ay gacanta u galaan nabadiidka macnihiinu waxaan u fahmay idinka xildhibaanadiinan kulmay maanta inaad ka soo horjeedaan mooshinka laga keenay ra'iisul wasaaraha warka soo sida ma aha taas waayahay tiradiinu hadda idinku imisay gaartay maanta kulantay أنت أذكر وأنا بقول أفرتي الله حلبان أو تاجرتن رئيس الوزراء أو تاجرتن مشكلة حلوة وصابونين وأنا بس أنا شخصي بكالله أيوه لا كان أنا فترة وراك على سؤال شنو جرب كذا شوي أنا واحد دفاع عنا كونستيتيوشن حلا كان هنا حل دفاع ترى ودي كل مرحلة كل جزء سنة يقول جوري البرلمان كيف فتح وقال أيوه أو بيش هذه لا يكون يعني لما تنكذوا البرلمان كله جاي أنت سنان رئيس وزراء حكومة السيستم هو أول برهاش مناسب هاي نيوديك العجز يجري ولا سوسي بين أيوه أنت سوي المشاركة وكبغيه إذا ما ميسينات دي عن لهين وحصل إلا يستمس جريو فمهم أساسا مناطق تقولوا سيكون منالين مناطق الله كانوا idinku xilligan maxay tahay ceebtaad u aragtaan ama dhibkaad u aragtaan in ra'iisul wasaaraha mooshin laga keeno waxa way horta baarlamaanka fasax u galaya haye waxa loo baahan yahay miisaaniyadii waxa loo baahan yahay hadda arrintaas dhacdaba in dowladda wasaarada soo dhiso xukuumaddu soo dhiso miisaan la sameeyo intay qaadeen si toos baahan tahay waa u tahay intaas oo dhan waxa weeyaan xilligan applicable kuma aha mid kale waxa weeyaan xildhibaan kale fikir waa qabi karaa inuu arko in mooshin la keeno ra'iisul wasaaraha lagu sameeyo xildhibaanada kale way u arkaan inaysan macquul ahayn taas marka waxa weeye waxyaabaha meejarka ama shaqooyinka oo meejarka oo baarlamaanada u shaqeeyaan weeye laakiin waxa muhiim ah in fikirka wala kala duwanaan karaa cod baa laga doodaya cod baa la gelinaya kadibna waxa weeyaan inta yar inta badan oo hoggaansato marka xildhibaan aad sidaas leedahay hadda mooshinka ka sukow waxa jira khilaaf banaanka yaal oo muuqdo oo aan qarsooneyn oo u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xildhibaanna madaxweynaha taageeray oo ra'iisul wasaaraha mooshinka keenay idinkuna waxaad sheegteen inaad ra'iisul wasaaraha taageersaneen laakiin mooshinka aad ka soo horjeedaan soo warkuma marka idinkuna dhinaca ra'iisul wasaaraha in la idinku tiriyo waxa weeye qofka galashadiisa fahamkiisa qofka si uu u fahmaa laakiin anagu mid aanu briefing taasada ku sheegaya shacabka Soomaaliyeed mid kale waxa weeyaan قصر بان مدو كان دوونتay laakiin abiyo taas waayahay arimahaas markaan ka gudubno waxa jiray kulan aad caawa yeelateen oo gudoomiyaha baarlamaanka aad la yeelateen oo gudiyada joogtada ah uu la kulmay kulankaas maxaa looga hadlayay walaalo halkaas waxa weeye waxaan u maaynayaa taas anigu si gaar ah uma hadli karo halkaas gudoonka uu ku kooban jeclaan lahaa ka hadashaan oo iyaga magaraysa ruqsadii ma sheegay ma ka hadlaanaga magaratay laakiin kulanka wuxuu ku saabsanaa waad ogtahay Soomaha adigu daba waa fadhiyo baan ka hadlaa gudoomiyaha okay gudigaaga gaar ahaan wixii aad ka hadasheen maxay ahaayeen marka dadkii aad waxaan rabnaa wixii ka soo baxay conclusion ka taasina gudoonka isaga xawilaya in aanu ka hadlo wax ka qabsaday walaal